koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayadda konfi baby iyo caanaha konfi laag sidaanay ilmuhu uga qosliyaan aryaadhaha reer kalamaan xalay madaxdi kalamaanka ahayd dhegaysigeeri waa ku dhafarteene how inti baaliis yaa birsuunaal ha soo baxdee ma baarideen inti baaliis yaa birsuunaal ha soo baxdee ma baarideen haye baryaan kala maqnayno waayidii basaase bulshayahay ma nabadba bulshayahay ma nabadba wala ku tabti barinaye ma barideen barinaye ma barideen adiguna wax kalaad ka tag hergalnaye ma hergasheen hergalnaye ma hergasheen war heystan hal afaa lagu qaadi jiray afafkan badan inta ka dhaaftaan dhageysta magaalada Garowe sidii lacagti tiiltiilay ama xalay dadkii ka hadlayo wada xishoonayay af wax cunay siduu yeeli jiray waa waramayeen miyaan gabaygu waa badan yahay idinku dheeray aryaxaad gabay nagu dheeraysa xabadba nooma sheegin warrinku waxa idin yiri miyay lacagtu waa badan tahay deyntu idin waashay lacagta imaaraadka bixiyay maya qadara dhiibti aryaadaha timirti horeba dab loo waay alla yiri kalamaan waxaan ku nacay shanqara kala idin baxa markaas aad ka hadashaan waxaan loo joogin dhageysta sariigtiya sabool bay ka tahay saamaxaadaba siigada dhacaysiyo hir iyo mawjadaha sida saldhig male siyaasada jirtiya hawsha socota saaxiib siyaasadii muufa ma ahan lugama karaacina waryoyonta kuwa maxay miidaan safiin waxaan idin idhi lillaahi deenda beeshay runta aaminka weyday beenta aan ogolaannay danaysiga aad dimbaystay arxankaa ka fogaannay laba aabba walaagtiyo laba uur wada saxay eedda taalla dhexdooda dhaqan maahan islaama ilaahow na badbaadi warwarkaad sheegays markuu baarlamaanka furmorgey kor ha loola kacee kabiirkii kalamaan aan kobta aan ku arkaa war kabtaa hafaninta waa igu soo kadisee bal warkaan iga koobi war madaxdii xala Garowe ka hadashay waxaa ugu war fiicnaa oo la qaadan kara warkiisa islaan ciise islaan maxamed wuxuuna u sheegay Soomaali waxay dhibaato soo martay wuxuu kale u sheegay wixii hore in lagu waana qaato oo mar kale ay dib u soo laaban war madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamed wuxuu yiri Soomaaliya 30 sano dawlad bay ahayd 30 sanana waa burbursanayd 30 sano nagu soo socda maxaan filanaynaa soo ma haboona inaan ka sii tashano hor u deeri ilaahayna siyoba ka darayhe aryaa anigu warkaaga ma aqaanay qabyada ana dhameystira ama uu yiri war mucaarad iyo muxaafid xalay dadkii Garowe ka hadlay waxa ka muuqatay warkooda in la yiri meeshan hadal xanaf la loogama baahna waa caleema saar Cabdiraxmaan Cabdishakuurna afkaaba sharooto laga saaray war muxuu Soomaaliland magangeliyo siyaasadda wadiisan waayay warka naga dhaxgalay dhageyso warka isaguna mar uu saxaafadda la hadlay wuxuu sheegay in madaxweynaha la caleema saaraya ka codsaday inuusan goobta ka hadlin maadaama aan madaxweynaha Soomaaliya raalli ka ahayn war beentaan iska daa xala Garowe mucaarad ma joogin muxaafid baa laga wada dhigay dadkii meesha ka hadlana qof kasta hadalkiisa wuxuu ku bilaabayaa asagoo karila waxaan salaamayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Farmaajo ya xal xafida madaxweyne xaafaaba ku bilaaba hal lees cafiyo leesuma uurfayaabe war xaa muxaafidaha maayadii odabiiqay iyo Arweelo Sheekh Shariifa muxaafidahay war madaxweynihii hore Puntland Senator Cabdiraxmaan Faroole wuxuu yiri madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waxay ka soo jeedaan Galmudug khilaafka Galmudug أحمد مدوبنا doorashadiisi waa waliye isku dadagin buu dhahay walaadeeronimo ku hadhay hawlahaysaay maxamed xaweenaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi loogu casuumi waayay Garowe war Muuse Biixi meesha kama maqnayna leeyfu u fiirsanaya caleema saarka warnamiyo ani warsiin haaya Soomaali mayka maahmaase hal haaran nilig halal ma dhalaasa
madawiine lafta garan qudbadiisa ila dhagaysadaasan ka aali mayleeya dadka koonfur galbeed xaquuqdiyo oo sax ee Puntlandka helankii war isagan waa madagay meelaha kala mooy xaquuqdaysa rasmiyan hali maaha war hanasa qudbaaha waraada gudoomiyihii gobolka Gaarisa ee Soomaalida NFD calaamasaarkii waxa ka hadla wuxuu yiri madaxda calaamasaarka caawa fadhisa waxa ka maqan Soomaaliland iyo Soomaali galbeed Soomaaliland meel kasta waa ku dhibanta oo farqa lagu dhagan yahay intiinaan korarka waaweyn wata ayaa taladu ka goodaa ama Soomaaliya badbaadiya ama qarib u dhaha war faarax macalin wuxuu yiri Soomaalida halalaayo si xal waar loo helo araada calaamasaarka xali anagu ma joogin Soomaalida waa wada joogta maxaa loo leeyahay yahuu war adinka waara idin matalaye aroowan aku hertiyo war Al-Sayid Sheekh Axmed Madoobe wuxuu yiri eega waxa la joogaa xilligii la isweydiin lahaa Soomaaliya xagee u socotaa laakiin kabtankada aan joogno wax la isuguma sheegi karo la iskuma calool fiyooba war gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi wuxuu yiri dastuurka Soomaaliya waa kan adduunka ugu muddada dheer ugu qarashka badan welina waa qabyo laba qofna ma kala saari karo war dhamaystirka dastuurka wasiir xoosh iyo xurriyadda Falastiin yaa soo horeeyay waa tii la yiri maxaa soo kordhay war dastuurkiinu nacasnimada cimri dheerku kaga dalayba war madaxweynaha la caleema saarayay dani wuxuu yiri waxna waa la kala leeyahay waxna waa la wada leeyahay yaan la isku qaldin marka warkiisa waxaan ku soo xasuustay hadalkii Cabdulqaadir Oromo ee ahaa kaygana anaa iska leh kaagana kulali war hawaalanina qof kasta kartidiisu wax ku yeeshaa waxna ku waayaan waradeena Soomaaliland cid nala yeelan kartaa ma jirto aryaadaha wax kale ma ogideen madaxweyne Farmaajo xalay wuxuu yiri haddii la iscafiyay anigana halay cafiyo anigana cafisaad iga tihiin waana idin la shaqeeyaa mugaan wixii ka dambeeya mucaaradna waa loo baahan yahay yiri oo laga ma maarmuminaysan inta shisheeye soo raacaan kursigayga hunguriyay haynin warnimayo waxay xalaq shaqeynaysaane maanta ka dambayso madaxdu wada qadeeyeen sidii Sheekh Shariif sheegayna iyo qosla ay ku kala tageen aryaadaha aniga waxa ii muuqata in lagu heshiiyay inaan la heshiin war wax wanaagsan saadaali waxa saadaalini wax walba waa ka hadasheen ugaartii dalka ka dareertay soo celinteeda ma laga wada hadlay war Mareykanku wuxuu yiri jid Soomaaliya iyo Djibouti isku xiran sameeyna war jidkaasi midkan ku tahriibi lahayn baa misoo midku soo guuri lahaa ani heer kala ma waxaan dhiilay kulunkeena waaya kawiirka ku jira waa la kasaa kulunkeena waaya kawiirka ku jira waa la kasaa warnimada Soomaali state gobolka Soomaalida Itoobiya maamusho waxaan u maleeyay maamul goboleedyada Soomaalidu ku dhaqan yahay madaxweyne Mustafa Cagjar iyo shidanka la yiraahdo gudoomiyaha xisbiga ayaa iskhilaafay kadibna Abiy Ahmed u yeeray labadoodaba hadda asoo labada dhinac ku sidee labadoodii oo qoslayu keenay yaa ceebkeed ma aha Soomaali waa caadadeed Soomaaliyada ayadu heshiin weysay cidii heshiisiisa khayr Allah siiyo war wiil Soomaalida qaxootiga ee Kenya ku nool kamida waxa uu ka qayb galay shirka dhaqaalaha adduunka waxaana uu yiri waxaan u baahanahay in la dareensiyo inaan dunida qayb ka nahay waxaan u baahanahay inaan u noolaano sida bini aadamku u nool yahay manin xayawaan dad idinka idin lamid ah ayaan nahay warniyo sidii qarab u hadlay war xabsiga dhaxaninkii lagu xiro Ingiriiska ahay arreeda waraa laga soo sheegay yaa warka haayane war xabsiga lagu weeraa la yiri waxba ka jira aryaadaha koow la xiraaya xaqxaqtay la yiri wax ma ka jira taas war shabaab iyo Daesh baa la xiraa la yiri ma waxba ka jira war jiraaba akaaru iman quraan la yiri waa dambiye ama waxaad ogtiin sheega ama naga taga mana ka tagayno mana kula joogayno ya wixii la xiraa hanugu cabaadin yaa war ilaahay ka cabsada war ya suuqan qabiilna war ya الله يدين حريفته